galbar waaqo badanayaal iyo marmooyin walaalayaal waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta diiran kalgacalka iyo walaalnimada leh aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa reer galbar waaqo sida magacu yahay galbar waaqo quruxda iyo sharafta iyo soo dhoweynta idinka muuqatay magac waa isleeyihin waa idiin nimid waa idin soo salaanay waa idinla xogaalnimada idiin noqono safarkii nabadda iyo xoogaalnimada qayb ka mid ah safarkaan iyo hadan ku soo gaarnay waxaan idiin wadnaa galmudugta cusub oo midowday oo wax qabsanaysa oo tashataan idiin wadnaa baahiyaha iyo howlaha la sheegay oo guddoomiyuhu xusayna insha Allah waxbaa la idinkala qabanaya aad iyo aad masantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantii waa salaabantihiin halkan waxaan ka dhagax dhignay isbitaalkii magaalada galbar waaqo sidoo kale waxaan halkan iyadana dhagaxdhigeeda hawsheeda ka mid ah iskuulkii magaalada galbar waaqo dadka deegaanku waa tashadeen waxbay qabsadeen iskuulka wax fiican baa uga diyaarsan inta dhiman annaguna waxbaan qayb baan ka qaadanaynaa waa joogaa wasiirkii waxbarashada wasiir tan adaan noo qaadaya qaybta aan ku leenahay galmudug ahaan iskuulka isbitaalkana sidoo kale waxaad diyaargarow fiican baad samayseen annaga waxaan u jecelnahay cid intii wax qabsata oo meel wax soo gaarsiisaan dadka u jecelna inta dhiman baan qaadanaynaa sidoo kale waa joogaa wasiirkii caafimaadka wasiir axmed faylkaaga gasho waxa ugu soo horeeya soo geli waa tashadeen reer galbar waaqo annaguna intaasaan u qaadnay